xogaga TPLF ayaa ku dhawaaqay ugu yaraan 3,000 oo askari oo ka tirsan ciidamadii dagaalada xooggan kula jiray xogaga Tigrayga oo ka tirsan ciidanka militariga dalka Ethiopia ciidamada gaarka ee deegaanka Axmaarada maleeshiyada maxalliga ay dagaalada culus kula galeen Kobo Soketa iyo guud ahaan gobolka Wollo oo gacantooda soo galay in loo daabulay maanta magaalada Mekele caasimada gobolka Tigrayga xogaga TPLF ayaa sheegay 3,000 askari ee maxaabiista ah inay maanta gaariyada xamuulka ee deegaanadaasi ku sugan lagu daabulay lana gaadhsiiyay magaalada Mekele caasimada gobolka Tigrayga ayadoo xogaga Tigraygu ay sheegeen inay maxaabiista ay hayaan guud ahaan hadii la sugageeyay 10,000 oo askari cagacageynayaan ee laga qabtay ciidamada dawladda iyo ciidamada kale garabka siinaya militariga dalka Ethiopia xogaga Tigrayga ayaa sheegay si talantaalisa ama maalinla ah inay u qabanayaan maxaabiista ama ciidamada dawladdu ay iskugu soo dhiibayaan ayadoo militariga dalka Ethiopia la sheegay dagaalka ka soconaya gobolka Axmaarada ama gobolka waqooyi dalka Ethiopia guud ahaanba inuu militariga dalka Ethiopia u carabisnayn inuu guud ahaanba la dagaalamo xogaga Tigrayga ciidamaduna ay si weyn ugu sii qulqulayaan gobolka Tigrayga usuna dhiibayaan dagaalka hore fooda la istarana ay xogaga Tigrayga isu dhiibayaan hubka iyo taageerada ay sidaan inay si fudud xogaga Tigrayga gacantooda ugu galayo dagaalada culus ayaa wali ka soconaya gobolka Axmaarada iyadoo gobolka Wakhamra saacadii la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalada culus oo u dhaxeeya TPLF iyo ciidanka dawladda xogaga TPLF ayaa goobaha muhiimka ah ee gobolkaasi gacanta ku dhigay iyagoo khasaare aad u ba'an gaarsiiyay ciidamada deegaanka Axmaarada iyo ciidanka militariga dalka Ethiopia ee sida weyn uga dagaalamaya magaalooyinka waaweyn ee istiraatiijiga iyo deegaanada ku hareeraysan ayadoo xogaga Tigraygu ay deegaano aad u ballaaran qabsadeen oo gobolka Wakhamra ayadoo sidii la wada ogsoonaa magaalada Soketa ay gacantooda gashay wadada weyn ee Lalibela iyo Soketa isku xidhan ay gebi ahaanba gooyeen deegaanadaas oo dhan ciidamada Tigraygu ay gacanta ku hayaan ayaa haddana waxaa ka soconaya deegaanadaasi dagaalo goosgoos ah u dhaxeeya xogaga TPLF iyo ciidanka militariga dalka Ethiopia ciidanka deegaanka Axmaarada maleeshiyadka maxalliga ee sida weyn deegaanadaasi u difaacay ayadoo ina meeshan ka maqneen xogaga Fana ee taageerada aadka u ballaaran ka haysta shacabka Axmaarada dagaalkuna uu yahay dagaal aad u culus sidoo kale wali dagaal culus ayaa ka soconaya gobolka Wollo ayadoo halkaas ay xogaga Tigraygu ay ka fureen dagaal aad u ballaaran deegaano horlana ay isku baahiyeen dawladda Ethiopia ayaa guud ahaan waxay daabulaysaa dhalinyarada 18 jirka ilaa 60 jirka ragga u dhaxeeya ayadoo jiida hore u daabulaysa dagaalka iyo dabkana lagu shiday haase yeeshee tirada ay dawladdu daabulaysa iyo dagaalka khasaaraha u leeyahay ayaa si weyn u kala duwan ayadoo dawladdu maxaabiista iyo ciidamada ay gurays ee jiida hore geynaysa guud ahaanba ay xogaga Tigrayga si fudud gacantooda u galayaan dawladda Ethiopia arrintaasi ay ku noqotay arrin dhabar jab oo dawladdu si lama filaan ah ay ugu baraarugtay inuu dagaalkan yahay dagaal meel fog laga soo qorsheeyay sidoo kale wali dagaaladii cusla ayaa ka soconaya xuduudaha dalalka Eritrea Sudan iyo Ethiopia ayadoo xogaga Tigraygu dagaalka ay ballaadhiyeen deegaanada aadka u tira badan ay ku baahiyeen uu dagaalka ka soconaya Humeera uu yahay dagaal aad u culus xogaga Tigrayga oo taageerada ballaaran ka helaya dalalka Sudan iyo Masar iyo dalal aan la sheegin TPLF qaybta ay ka taageerayaan ayaa xogaga Tigrayga ku cadaadinayna awoodooda koobaad saaraan Humeera ay deegaanadaasna gebi ahaanba gacanta ku dhigan
si dagaalka Itoobiya uu meel ugu dhaco xogaga Tigrayga ay gebi ahaanba kala jiraan taageerada Dr. Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki waa madaxweynaha dalka Eritrea oo ah goobta kaliya ay ciidamada federaalka Itoobiya ciidanka Eritrea ay ka wada hadlaan ama duulaanka ka qaadanay tahay Humero oo goobta labada dalba laga difaacaya hase yeeshee haday xogaga Tigrayga Humero gacantooda gasho gebi ahaanba Eritrea godoon ay galaysaa dowladda Itoobiya xogaga Tigrayga waa loo kala baxaya ayadoo laga yaabo dagaalku inuu si fudud dhaan ugu dhaco sidoo kale dowladda ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa la sheegay inay gebi ahaanba ku fashilantay wax ka qabashada xogaga Tigrayga waa sida ay sheegeen aqoonyahanka dalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa loogu baaqay waa Dr. Abiy Ahmed inuuna israacin dalka Itoobiya guud ahaanba meel aan waxba laga qaban karin ama meel aan waxba la iska maqlaynin oo gaarsin hase yeeshee hadda dalku dabaqabad leeyahay waa hadduu Dr. Abiy Ahmed gebi ahaanba saaxada banay wax la isku yabi kara ama lagu wada hadli karana wali uu meesha saaran yahay hadduu inta in ka badan ay sii socotana xaaladdu ay faraha ka baxayso Itoobiya magaceedo dambana aan maqlaynin aqoonyahanka dalka Itoobiya ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya inuu sida ugu fudud ee aqliga isticmaalo hadduuna awood u lahayn inuu gebi ahaanba soo afjaro xogaga mucaaradka aadka u baysan dowladiisuna ay awood u lahayn inay amniga dalka faraha ku dhigto ama xogaga mucaaradka gebi ahaanba saaxada ka saarto dalkana hal xukun oo Itoobiya uu ka shaqeeyo waa inuu ra'iisul wasaaruhu asagu tanaasula xogaga mucaaradka iyo dadka rayidka iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiintuna ay isu yimaadaan Itoobiyana dib loo yabyabo si xaalka dalka loo dejiyo si jiritaanka Itoobiya uu sii jiro hase yeeshee xaaladda hadda moodida dabka la isku sii shiday ee dowladuna ay abaabulaysa dhalinyarada ciidamada deegaanada ciidanka federaalka oo gebi ahaanba ku fashilmay dagaalka TPLF inaan wax laga keenin faa'iido hase yeeshee dalka uu godweyn ku sii dhacayo xogaga oramada ee dagaalada culus kula jira dowladda Itoobiya uu hogaamiyo Jalmaro ayaa sheegay inay ciidamadoodu ay qaadeen tallaabo militari oo aad u ballaaran guulaha waaweyn ay ka gaareen deegaanada sida uga fogeen caasimadda Itoobiya oo ka tirsan deegaanada oramadana ay dagaal xoogan kula galeen ciidamada dowladda Itoobiya xogaga dagaalyahanaduna ay dagaaladaasi guulo aad u ballaaran ka gaareen jamhadda Ola ayaa dagaalka ka socday waqooyiga Itoobiya sheegtay in qayb libaax ka qaadanayso ayadoo sheegtay gebi ahaanba ciidamada gobolka Oromada ku sugan ee dowladda Itoobiya iyo ciidanka Oromada inay go'doon gelisay wadooyinkii waaweyn rabay in laga daabulo ciidamadaasi ama jiidaha hore colaadaha ay ka socdaan waqooyiga Itoobiya lagu geeyay inay go'doon gelisay ayaduna ay dagaal culus ku hayso dagaalka gobolka Oromiya ka socdan inuu yahay dagaal aad u culus dagaalyahanaduna ay guulaha ballaaran ka gaareen dagaalka ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa moodaa hadda inuu xogaga Tigrayga si weyn oo la taagdaran yahay dagaalkoodana si weyn loogu fashilnay ayadoo la garanayn xaaladdu meesha ay ku dambeyn doonto jawiguna marba marka ka dambaysa isbedelayo tan iyo kulanti dambe wacan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.